إيران أما بلوين تحوال الله حلا كدكتون هذا نما كاس رجع قبياشة فشل مي أو طلع يتوان يتجاد يتشوحي هايان أنا العرق على جود لابا يدبجت وإحنا ويربان وإحنا واقو برلمان وحكو برلمان وحيت هاي إن أي سكور كانان بالشدة دكتور قبل كهيران بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد أولا إلهي بقى مهدس كلام أدي أنا هلكا وبحو سلام يا صحافة قارهانكو هذا القناة كسل جوجنا بعد السلام محرب أنا وحير كيرادو الرمها قبل كهيران برياها كان ضدك إسلام أحمريان إسلام مركزنا أنو كلا قاضو لبا نوع labadaas nooc oo nuucna oo yahay aan kula hadlayo bulshada reer Hiiraan gaar ahaan especially belweynta ama reerka xawaadle midna waxaan kula hadlayaa labada nin maamulkan oonka ah fashilmay oo tabar iyo taag iyo talo wuxuu leeyahay aysan jirin oo la magac baxay Hirshabeelle labada nin ma lagu kala magacaabo cali guud laabe iyo dabageed wuxuu yiri saddex oday biyay isru lahayn kuma sifoobaan awowga sagaalaad hadoo seexa jiray meel xun sumadii oo dhigaayo xariga oo soo haba dib ay kula socota suci gaabiyaahuna kama dhax tago soofka weyla horta macnaha waxay noqdeen caynkaas mana rabeen aan hoos u sii dhax galo marka waxaan leeyahay cali guud laabe iyo dabageed waxna way rabaan waxna waa ku ballameen waxay ku ballameen waxay tahay in ay iska hor keenaan bulshada degta gobolka Hiiraan iyo kuwa shabeellada dhaxaba horeyna isaga hor keenay saad la socotaan waxaad ogtihiin inay in badan ay gaar ahaan waliba shabeellada dhexe oo gacan ka hadal ka dhacay Hiiraanna gacan ka hadal kama dhicin laakiin waxaad dareemaysaan inay dad badan oo dega gobolka iyo beesha xawaadlay hore isaga hor keeneen ay isfaham darro badan iyo arrimo badan oo buuquhu ay ka jireen oo isfaham darro ah haddana marka waxay ku howlan yihiin inay iska hor keenaan si gaar ah beelweynta xawaadle ee walaalaha ah oo wax walba ay ka dhaxayaan dad bilaadinu ka dhaxayo ayay ku howlan yihiin haata waxaan leeyahay marka dadka reer Hiiraan gaar ahaan beesha xawaadle ee hadda la damacsiin in iska hor keenaan ay macnaha waxaan horey loogu arag ama aan lagu aqoon ama ay gacaaganaa jiraan inay ka dhaxuriyaan reer Hiiraan ama beelweynta xawaadle waxaan leeyahay ka digtoonaada nimankaas ragar qabayaasha ee fashilmay oo tala iyo tawaan iyo tigaad iyo tashi waxay hayaan aan la arag oo go'doonka ah reer Hiiraan aan leeyahay waxay rabaan waa midaas waxay macnaha ay ku ballameen waa midaa waxay rabaanna waxay tahay dalka maamul goboleedyada ka jira la yiri maamul goboleedyadaasu meeshii soo fariisanaan in fariistaan waa rabaan wax dheefkay qaadanaan inay qaataan waa rabaan taasna waa waxay macnaha ay rabaan ballankooduna waa inay beelaha iska hor keenaan waxay hore ugu guuleysteen in marka beelaha dego gobolka Hiiraan iyo beelweynta xawaadle iska hor keenaan laakiin waa laga soo gudbay hadda marka waxay marayaan inay beelweynta xawaadle oo walaalaha ah iska hor keenaan marka xawaadle waxaan leeyahay yeenay kuwaasu ida dagin inay ida daga karin waan ogahay in iska keen horkeeni karin waan ogahay in dad waxaas ka fac weyn oo ka maskax weyn oo ka aragti dheertiin waan ogahay waanan hubaa inay macnaha sidii wax u rabaan in wax noqonayn xawaadle taasaan leeyahay sida la socotaan waxay bariyahan ku howlanaayeen wax la yiraahdo deegaankaas oo cadaaladna ku saleysnayn si fasaxana ku saleysnayn rabitaanka dadka bulshadana ku saleysnayn wax macnaha balayn iyo qorshe oo loo dejiyo ama u diyaarsan nooc doonaba ha ahaaday oo golo deegaan loo diyaari jirayna oo u diyaarsan aysan jirin in ku howlan yihiin aad ogtihiin in wax ogtiin ayaga meeshii wax ka soo bilaabeen su'aalaha hadda waxay leeyihiin baarlamaan yiri ayanka waa inay dooranna waxaad ogtihiin baarlamaankaasu inuu noo tagin magaalada Jowhar kaliya xalkii mar oo dan la leeyahay oo la rabo ama ina macnaha mooshin wax loo qaado sida hadda aad arkaysay mar dhaxdaan ay lahaayeen laba degmaan u sameeynay labada degmo mid kamid ah ilaa haatan waxa ku sugan nimanka la yiraahdo qawaariij waa galbeedka gobolka Shabeellada Dhexe magaceedii waa ka xumahay waa iga fakaday
meelaha dhanka qorrax u dhaci jirta degmay ugu dhawaaqeen nimankii qawaariijta ma argagaxisii la diriraaya degan dadka ku maamusho ayaa wuxuu ugu yeertaa dadka jooga ilaa hadeertaan Jowhari area-deed ayaguna degmaan ka dhignay yiraahdeen waxay ku tusinaysaa marka in macnaha qayaali meesha ay ku hayaan si wax ruma ama sax aysan ku haynin golahaas deegaankana waxaan leeyahay inay ka waantoobaan dadiyowga deegaankuna inay macnaha waxaas iyo wax lamid hadii loogu yeero ay iska fogeeyaan aynan macnaha ka mid noqonin si macnaha wax oo baadila aysan ugu dhicin dadku taasuna nimankaasaan leeyahay waxaan leeyahay waxaan hadda ka maqlaayay muumin oo iga horeeyay in Cali Jeyte xilan ka qaadayna waxaas ay wadaan Cali Jeyte xil kama qaadi karaan waxayna ugu qaadi karnaa macnaha waa wax iska cad dadku dhawada og yahay sidar muuqda su'aalka dhanba la yiri Cali mar hore ka qaadi lahayn laakiin tabarta iyo ayaa u diiday dantooda marka macnaha waxaan ku sheegay kuma jirin awalba laakiin rabitaanka reer Hiiraan iyo bulshadu ku joogay haddana ayadii ku jooga shaqooyin kale oo guud ahaan gaar ahaan macnaha gobolkana muhiim u ah guud ahaan Soomaaliya muhiim u ah Cali macnaha waa ninkii dhaqaajiyay oo mishinkii ama motorkii dhaqaajiyay ahaa oo ku mahadsan yahay mahadnoo ka gaadho intii dhimanay inuu dhameystiro ayaan ka codsanayaa ama aan u jeedinaynaa anigoo ku hadlayo codka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan ku sheegaa adiga magaca kan ee golahan hadda badbaado bulsho oo rumaantii mar walba u taagan arrimaha bulshada iyo wanaageeda wixii dib ku ahna inay macnaha ka hor istaagaan wixii wanaag u ahna inuu horseedaan sida awgeed marka macnaha inay ay Cali Jeyte la shaqeeyaan dadkii hore la shaqeeyay ugu horeysay dawladda federaalka oo ciidamo iyo saanad iyo wax walba oo dagaalku macnaha uu ka maarmin oo akiinaada la garab taagneeday in halkeeda ka sii wado dawladana waa ka codsanayaa waana macnaha wayna wadi doontaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna isaguna ku mahadsan yahay waxyaabahaas hore u baasgareeyay horeyna macnaha ugu baaqay dagaalkaas ka dhanka ah kooxahaas dalka iyo dadka dhibka ku hayo ee ku soo duulay 15 sano ee la soo dhaafay aad iyo aad aan idin salaamayaa